الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله الله تبارك وتعالى شريعة الإسلام كيدين تماموس كبدن وحو أسودري أنبياء ذا سندتك وحي برين مكارم الأخلاق والصفات الحميدة دمعها قرحون إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه ونبري دين تإني تهي دقن وناق يدبعق وناكسن إني تهي الدين أي نبي صلوات ربي وسلامه عليه ونوشاقي خد بديني هرأي ولا فاضل حنسوق ذني غضبك أما عرض يحناق السامين كل يهي يدواتذا ومركا وكسم يو فردق قفك مسلم مجتمع عيسى يورير كيسا وحاكسو هرجيدا عرضاس أيها الأفاضل سفلو يقانو الحلم قفك إنو هذا قف مركز دلقات بدن والصبر بدن إنو هذا نبيين صلوات ربي وسلامه عليه وحد عجرتي عربت إن أوي ماذان أيغو وفدها ومركز مرتوها أي أوي منجر النبيين صلوات ربي وسلامه عليه ذاتك النبي أوي مذ وحكم ذا قبيلة لديه جري عبد قيس قبيلة ذا سي مركي نبي حقي سيسو قالين aad bay u soo degdegeen oo nabiga ay la kulmeen ayagoo uu ka muuqdo raadkii iyo sumadihii safarka dharkii iyo boorkii iyo waxyaabahaasi ilaa nin ayaga ka mid ahaa ninkaas xoogaa wuu dib dhacay muxuu ku dib dhacay marka koobaad gaadiidkii safarkii ayuu meel uu ku xiray dharkii safarka ahaa ayuu iska bedelay wuu qabaystay asigoo udgoon badan ayuu nabigeena u yimid nabiga markaasuu ku yiri hadal caan noqotay een ayuha al-faadil wuxuuna ku yiri waxaad leedahay laba dabeecad oo Allah tabaaraka wa taala aad u jecel yahay labadaas dabeecadood nabigu wuxuu ku qeexay al-hilmu wal-ana al-hilmu inaadan markaasi inaadan degdegin oo aadan caroonin dulqaad aad yeelato iyo al-ana arinka markaasi inaad u fiirsato kaadsiin iyo deganaanna markaasi aad ku sameeyso maxaa yeelay nabiga maamuustiisa waxay mudneed ayadoo dadkan markaasi ay soo qurxiyeen qaab wanaagsan ay ku yimaadaan inay nabiga ay kula kulmaan ayaa aad u wanaagsana Allah tabaaraka wa taala min asmaa'ihi al-halim ayaa kamida sidoo kale Allah tabaaraka wa taala anbiyadiisu wuxuu ku tilmaamay dabciga xilmiga iyo dulqaadka nabi ibraahim alayhi salaam Allah markuu amaanay wuxuu yiri inna ibraahim la awwaahun halim wa dulqaad badane qoomkiisa dhibaataday u geystaan wuu ku sabri jiray wuu u dulqaadan jiray markii loo bishaareynayay walad maxaa loogu bishaareeyay walad xilmi badan wabasharnaahu bigulaamin xaliim anbiyada nabi nuux calayhi salaam iyo nabi shucayb calayhi salaam sida qisooyinkooda lagu warmay fi suurati al-acraaf qolooyinkooda markay dacwadii iyo diinta ay u bandhigeen qolooyinkii waxay ku yiraahdeen waxaad tihiin dad waalan ama doqonnimo idinku jirto markaasay yiraahdeen laysa bi safaaha laysa bi dalaala walakinii rasuulu min rabbi alcaalamiin يعني أيها وحي كنت المامين إني والين أيها ما إن عرونين لكن وحي يرهد أنا ما والني ضد قمنا منهن لكن الله تبارك وتعالى أي الحق سكسر عناو إرجو أي النهاية أي يرهدين نبيين صلوات ربي وسلامه عليه دلقات كوحوها تصالك نبونا جبذا أيها نبيين مالن وحد علي أنس أي السعودي أنس أي كشيكي نبي أي السعود بويري وحنا حرنا قوم مركز لنعيده أي آدي وأذيجهن waxaa nabiga soo haleelay nin reer miya oo reer baadiya markaas wuxuu jiiday go'in nabiga dhinaca qaybta dambe ayuu ka jiiday wuxuuna raadeeyay luqunta nabigeen salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh markaas hadana wuxuu ugu daray hadal qalafsan oo aad u adag wuxuuna yiri muhammadow nasiibu hawlaha allah tabaaraka wa taala ayaad adiga hayso nasiibu murli min maali illahi alladhi indak nabiga muunan caroonin qofkaasina xadgudub kuma sameeynin kumana qaylidin wajigana uma gaduudin maxaa yeelay nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh waligiisa ma ayna dhicin inuu caroodo nafsad ahaantiisa laakiin Allah tabaaraka wa taala daraadiisa ayuu u caroon jiray nabiga waa dhowl cadeeyay wuu qoslay kadibna wuxuu faray ninkaas reer miiga ahaa reer baadiyaha ahaa in wax la siiyo ayuu faray dabcigaasi wanaaga badan ay Allah tabaaraka wa taala wuxuu ugu sakhiray nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu alayh قلوبتا كونكا أودن إن حقي سيد المان ونبيك أي جعلادان أرنكاس الله تبارك وتعالى مركاوت المامي وحويري فبما رحمة من الله لنت لهم نحريس الله حقي سكاء هذه درتي أياد وجه العسناتي ولو كنت فظا غليظ القلب
لكن محمد هذا نقول له يتقف قلبسا قلبي سأذجه لنفضوا من حولك ذاتك هريرها جاه ويكاك لياعي لهين أو ويكلا عرر لهين نبي نوح نبر حلم قاسي يدلقاتك أيها الأفاضل دلقات كنا مركي لقيحي وحالي هذا ضبط النفس عند الغضب قفك نفسدي سإنه حكمايو عرض أكتيسا مركي لقى عريسيو إنه أودوه لكرا نفسدي سإنه حكمايو أي ليلة هذا الحلم أيها الأفاضل الله تبارك وتعالى مركو إن أوت المام يدتك مؤمنين تا متقين تا جنة مركز إسكاله وعقوت المامي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس دتك عرضوا ذا مركز قرية دتك كلمة إسكعفنايا ابن عباس رضي الله عنه أيام للعايي ننكي عايي أيا وحو فريبة إن وحل السيو موليس وحوها عكرمة مركز كوير نك النعاني عكرمو بل ويدي مدن أيا جرتا ميو باهي لأن قفك مركو قلب سنان كل رقم وكو عينيو لبا يجرى أيها الأفاضل سيدو كلا الإمام عمر ابن عبد العزيز وحد عذي هبين مقدية إنه مسجد وسوق لي هبين كاس مقديها مسجد كو سوق لي وحو كو استاغي أما وكو دعين مركز مسجد كدحدي سجيفي نكي وادو عراضي وحو يري أمجنون نن موالنتها بوكو يري عمر ابن عبد العزيز حلم أيولها دول قاضي يولها مركز سوكويري مايا لا لست بمجنون أنا موال نبويري لكن إلى الذي هريره ساها أيها الأفاضل وحي اسكت ديين ننكي سيدا كويري أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز إن الدباتيان مركز سويري ماي جوغ بوي سألني أني مجنون فقلت لا وحوي ويديين إن والنا هاي مركز سنجوا وحن كوري مايا أنا موال نبويري جوابت أيوسيي أيها الأفاضل حلمك والدبعات أدو قرح بدن وحانا لغت الماما إنو يهي سيد الأخلاق إنو يهي يا لغت الماما سيدوك أيها الأفاضل الأنات قفك إنو أرنكيس وكاتسين وكسميو إنو ندقدقين أيادو في عن لأن العجلة من الشيطان دقدق أيها الأفاضل وحكي ماذا الشيطان العجلة عاقبتها الندامة دقدق أيها الأفاضل عربتي سمحي نقطة قفك إنو قوم مايو أي نقنيسا الله تبارك وتعالى قرآن كيس في سورة الحجرات وحو نفري أرمها نسوغاري هدان مقلنا إننا نسلمركي قادنين مركا كواد أن سمينو تثبت أركاس إنن بارنو حقيقة سنة أن أغانو أيو نفري لا سيما عصرك أن جوغنو أن نولنها أيها الأفاضل وآد مركاسي أي أبدتي استعمالك سوشيال ميديا أما تواصل الاجتماعي براها بلشدة اللقو كل ما وحااد أبدنا أيها الأفاضل ورئن لفافيو أما الصبر بين أبورة إن لفافيو قفك مسلم كان واحد دور كيسا إنه حقيقي وركن لفافيي صبر كان وحيابها لفافيي حقيقين يتهي أما إن كلا وإنه حقيقيو قفك وإنه نكدك دقين وحو اللي بقوا هالكاسوكا قريي أما وحو اللي بقوا أركايو محايل أيها الأفاضل واحد دعي كرتا دقدقاسي إنه بابيو قيس لسنا إنه مركز النفس فربضان إنه هلاغو إنه سوجيدو دباتون يوليبا إنه يغيريودان أيها الأفاضل تأنيغا يقفك إنه كفكرو أرن كان أسمين عربتي سمحي نقونيسا وعي كمي دهدتك اللبادة عقلدا دبعادو هذا والشيء كما دقدقان إلا أرن كيسي حقيقة ديس أي باران محايل الشيء اللي قد دقدقا عربتي سوحي نقونيسا عاقبتها الندامة قفك إنه قوم مايو حل قوم مدي سنة وحبائنا نو تريكرين أيها الأفاضل وحد على قصة دوانا نقري أيها الأفاضل آباء أو مركز ويلكيسا قريقا كعياريي أي ويلكي وحو جيبيي دلوينك قريقا أما داقدها قريقا متكم إذا أيو جيبيي آبه أوادو على السنة أي وحو ويدي ويلكي للذي يجيبيي ويلكي رنت أيو الشيغي أبو أنيغا يجيبي بويري آبه وعراضي ويسحكمين وايي تأنيغا يلغواي وحو سوق هذا جيد دولك ألنا وحوق بدن ويلكي أيو إن بدن وكو قراعي ويلكي واوي لكن أباها كما فكرين محلول أوينيا أوين تنفرها بدن محاكينيا هبينكي ويكلا الساحدين أرورتي مركي لسو توسعي ولا فاضل هو يدي وحي اسكو دايد ويلكي يرى إن هدد أي كسو توسيسو أو أي كعسو ويلكي وحي أركتو ولا بدي سقعمو دي كدادنايا مركي سي بارتينا وحي أوغاتي حالي آبه إنو قراعي waxaa loola cararay isbitaalkii dhaqaatiirtii markay baareen ayuha la faadil waxay ogaadeen waxa lagu garaacay wiilkani inuu lahaa sun inuu lahaa yaani geedku uu ku garaacayay waxa ka soo jeeday masaamiir fara badan oo daxalaysay masaamiirtaasi daxalka ahaa waxay saameeyeen wiilka jirkiisa wayna ku faafeen
dhakhtarkii wuxuu sheegay ayuha al-faadil haddaan laga gaarin oo labadaasi gacmood qaybta hore haddaan laga jarin inuu faafayo suntani inuu markaas sababi karo wiilka ilaa markaasi garbaha ama ilaa gacmihii in la siibo oo la gooyo inuu sababayo aabihii oo aad markaasi u walbahaarsan oo aad u murugsan ayaa wuxuu saxiixay wiilkiisa markaasi gacmaha qaybta koobaad ee markaasi hore in laga jaro ayuu saxiixay wiilkii markuu soo toosay wuxuu arkay asigoo labadii gacmood go'an ayuu arkay asigoo labada calood go'an ayuu arkay markaasuu aabihiisa fiiriyey wuxuuna ku yidhi aabow qaladkii xalay iga dhacay mar kale uma laabanaye bal labadeydii gacmood ii soo celi buu yidhi aabihii ayuha al-faadil wuu isxakameyn waayey aad buu u walbahaaray waxay sababtay inuu iska tuurayba daaqadii markaasi ku aalnayd isbitaalkii ayuha al-faadil waxyaabahaasi oo dhan maxaa sababay degdega uu sameeyey arrinkaa uunan ka fiirsanin ayuha al-faadil caruurta waa nicmo oo allah tabaaraka wa tacaala uu na siiyey mararka qaar waxaa dhacaya waxyaabo naga caraysiinaya dhiiggeena kicinaya inay sameeyaan laakiin waa inaanan nafsadeena adeecin waa inaan ku fikirnaa ficilka aan qabanayno ciribtiisa maxay noqon kartaa waa inaan ku fikirnaa waxaa jirta ayuha al-faadil qiso sanadkiisa aan xoog badnayn laakiin culummada zamankeena intooda badan ay wariyaan ayaa jirta cabdullah ibnu zubayr iyo mucaawiya ibn abi sufyaan ayay dhex martay labadooda waxay ku qabeen madiinata almunawara beer ayay ku qabeen xilligii dambe mucaawiya cumalladiisa iyo shaqaaliyaalkiisa waxay soo dhexgaleen beertii cabdullah ibnu zubayr arrinkaasina dhowr goor ayuu dhacay cabdullah ibnu zubayr arrinkaas wuu ka carooday markii dambe wuxuu sameeyey qoraal iyo fariin ayuu u qoray mucaawiya ibn abi sufyaan asigoo caraysan wuxuuna ku yidhi haddaad ka qaban weydo shaqaalahaaga beertayda ay ku soo xadgudbayaan oo ay soo gelayaan sayakuunu baynana shaan labadeena waxaa inoo dhaxayn doona arrin ayaa noo dhaxaynaysa mucaawiya oo xilligaasi maamulka hayay wuxuu la tashaday wiilkiisa yaziid ibn mucaawiya yaziid wuxuu ku yidhi waxay ila tahay inaad ciidan aad farto oo ninkaasi la soo qabto buu yidhi laakiin mucaawiya ibn abi sufyaan waxaa lagu yaqiinay xilmi inuu xilmi badnaa uu dulqaad badnaa maya buu yidhi arrinkan arrin ka khayr badan ayaan kula dhaqmaynaa cabdullahi ibnu zubayr waxaan ognahay cabdullahi ibnu zubayr waxaa dhashay asmaa bint abi bakrin asidiiq radia allahu canha wuxuu qoray qoraal wuxuuna ku yidhi hadday tahay adduunyo waxa noo dhaxaynaya aniga iyo adiga cabdullaahiyow adduunyo oo dhan adiga ayaan ku siin lahaa haddana qoraalkayga markuu ku soo gaaro beertayda ku darso beertaada shaqaalaha ku dhibaateeyeyna adiga ayay kuu noqonayaan shaqaale oo adiga markaasi kuu khidmeeyaan cabdullahi ibnu zubayr qoraalka markuu soo gaaray wuu isxakameyn waayey aad buu u ooyey wuxuu markaasuu u tegay amiiru lmu'miniin mucaawiya ibn abi sufyaan wuuna raaligeliyey ayuha al-faadil wanaagaasi maxaa keenay mucaawiya markii arrinkan iyo qoraalka ay soo gaartay muunan caroonin muunan itaacin oo muunan raacin nafsadiisa ay waxay ugu yeertay laakiin wuxuu la yimaaday ta'anigaas ayuu la yimid markaasuu allah tabaaraka wa tacaala dhexdooda uu dhexdhigayba jaceylkaasi iyo walaaltanimadaasi lianna allaha tacaala ayuha al-faadil wuxuu noo sheegay dadka markay xumaha ay nala kulmaan haddaan kula qaabilno wanaag waxa ahaanaya dhexdeena kaannahu waliyun xamiim dabeecadahaasi wanaagsan ay shareecadan islaam ayna faraysaa taasina waxay ku dhisan tahay badbaadada mujtamaca iyo fardiga iyo caa'ilaadkeena iyo badbaadada ayuha al-faadil caafimaadka allah tabaaraka wa tacaala uuna amray inaan badbaadino nafafteena iyo caafimaadkeena allah tabaaraka wa tacaala hanugu arsaaqo dabeecadahaasi qurxoon hanaga mid dhigo dadka markay qowlka ay maqlaan ka qaadanaya kiisa wanaagga badan ee khayrka badan allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa al-ummata al-islaamiya dhammaantooda inuu mideeyo quwad iyo xoog iyo markaasi mujtamac xoog badan allah tabaaraka wa tacaala inuu ka dhex abuuro اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد